Chatham House waxaanad sheegtay mar kale Somaliland madax banaanideedu inaysan ahayn wax dood ku jira ama laga noqonayo xagga gooni u yaala laakiin haddana waxaad si ka duwan sida looga hadli jiray inta badan madaxda Somaliland uga hadli jirtay aad uga hadashay mandiqada waxyaabaha ka taagan gaar ahaan koonfurta Soomaaliya maxaad u aragtaa xalka mushkiladda Soomaaliya ka aloosan mushkiladda Soomaaliya ka aloosan horta waa ummad dal iyo dulkooda noolaan jirtay buuro uma dhaxayaan wabiyaal uma dhaxayaan wax kale joojinaya ma jiraan oo muxuu ahay wixii dhibaatada halka ka dhacday halkana waa soo gaaraysaa xagga ka timaadana xaggana waa gaaraysaa badda ugu horeysa horta marka ugu horeysa xagga madax banaanida Somaliland iyadoo inuu taariikhdeeda ka warqabno sida marka hore Israaciil ku yimid waqtiyaasha kamid ahaa oo aynu doonaynay in dadka ama Soomaalidu doonaysay in wixii af Soomaaliya ku hadlo isu yimaadaan baa jiray markii waqtigii xorriyadda la qaadanayay lixdanaadkii laga qaadanayay koonfur ahayd Talyaaniga muxuu ahay xiriir la lahayd waqooyiga Ingiriiska ahaa Ethiopia Kenya meelo badan Francisco Djibouti noqotay way jireen waqti aynu doonaynay in Soomaalidu isu warato wixii la dhihi jiray shanta Soomaaliyeed dareenkaas u xambaarsaneed tii Israaciil u xambaarsaneed laakiin way noqdo taariikhdi markii ay inoo geysay dagaalo fara badan oo in wadamada jaarka la gallo oo Kenya la gallo oo Ethiopia la gallo oo cid walba la gallo waa tii arrintii shaqo weeyday waxa dhashay heshiis ama dareen ah in cid walba halkeeda ay ku noolaato oo muxuu ahay xiriir wanaagsan iyo walaalnimo ay ka dhaxayso waa kaasoo Djibouti maanta waa madax bannaan waa goonidiisa cidana ka hadlamayso muxuu ahay Israaciil iyo muxuu ahay dhibaato kale ma jirto wanaga imika wa tagnay Ethiopia waa taasoo xiriir wanaagsan ma naga wada dhaxaya Soomaaliya halka ku joogtaana waa taa dalkoodii iyo dadkoodii jooga sidoo kale Soomaaliyana way noolaan kartaa way joogtaa dhibaatada in la kor qaado caalamkana aanu ka mid noqono sidii loogu soo dambaan lahaa nabadgelyo waxaanu ka qabanno annaguna Somalilandna dadkeedii maadaama ay la soo noqotay waqtigii dalka la soo galay ay iyadoo ay xagga shacbiga ka timid ay dareenka la soo noqotay iyana ay sidaa ku guulaysato oo sida la isku raaco ku wada shaqeeyo waysan doonaan Soomaaliya sida hadda caalamku u yaqaano oo macnaha qaramada midoobay sida uu qoran oo kale oo ay ku jirto Somaliland madax inta ah oo dhan marka la fiiriyo mas'uulka uu taageerayaasha badan oo shacabka ugu faraha badan intuu u soo baxay codsiyo waa adiga ma laga yaabaa inaad mandate-kaas isku daydo in aad inta kalena aad wax ka qabato wanaag baan la jecelahay sidaan u sharxay wax ka qabashada mar walba wixii aan ka qaban karayo qaran ahaan iyo dawlad ahaan iyo dad ahaanba diyaar baan u nahay mar walba waan iga maqashay in badan anigoo radio-ga ka hadlaya BBC iyo kuwa kaleba ka hadlaya oo leh wixii dadka wax yeelaya waanu ka soo horjeednaa dhibaato u geysanaya waanu ka soo horjeednaa laakiin wixii isu keenaya iyo wixii waxtarkooda iyo mirayntooda iyo nabadgelyada ka shaqeynaya diyaar baan u nahay inaan muxuu gacan ka siino waana jecel in dadkii shacbiga dhibaatada laga daayo laakiin markay timaado madax banaanida Somaliland taas iyadu waa mid laba taabtaana waa dareen ka yimid xagga shacbiga oo shacbiga goosto ummaddu isku raacday waqtigii la ogaayay ay dalka la soo galay madaxweynaha Somaliland Ahmed Silaanyo aad iyo aad baad mahadsantahay adiga badan